KFC come to China, come to my city. You applied. 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just don't want to say that. tani waa sheekada Jack Ma waa ganacsade adduunyada caanka ah sidoo kalena waa dhiirigeliye nololeed oo inta badan dadka waxa uu ku dhiirigeliyaa sidii ay fursado shaqo u abuuran lahaayeen 57 jirkan Jack Ma asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa dalka China gaar ahaan magaalada Hangzhou waa asaasaha kambaniga caanka ah ee habka online-ka wuxuu iibiyaa Alibaba Group mar la waraystay waxa uu sheegay kambaniga caanka ah KFC ayaanu 24 qof shaqo u xareysanay 23 kale waa la qaatay laakiinse aniga lama aqbalin hase ahaatee sidoo kale waxa uu sheegay inuu jaamacadda caanka ee Harvard University in ka badan 10 jeer u codsaday laakiinse aanay u suuragelin codsigiisaasi So that time I suddenly fell in love into the language, the English. And there's no place you can learn English at that time. There's no books, English books. So I went to the Hangzhou Hotel, now called Hangzhou Shangri-La Hotel, because that was the hotel can receive the foreign visitors. So Jack Ma mar wax laga weydiiyay qaabkii uu luqadda Ingiriishta ku bartay waxa uu yiri luqadda markaa ugu korarsado dadyowga magaalada ama waddanka China u soo dalxiis yimaada ee ajaanibka ayuu isku dayi jiray inuu magaalada ku safriyo isagoo ujeedkiisu ay tahay inuu luqadda Ingiriishta ka faa'iideysto wuxuuna uu ka korarsado dadkaasi ajaanibka Jack Ma dabayaaqadii 90-meeyadii ayuu halabuuray mareegta caanka ah ee Alibaba Group isaga iyo qaar ka mid ah asxaabtiisa xilliga isticmaalka internetku aad ayuu u adkaa dadkuna fikrad kama haysan laakiin Jack Ma saaxiibadii way la yaabeen markuu arrintan u sheegay inuu internetka u doonayo inuu shaqo ka abuuro la yaab ayay ku noqotay hase ahaatee ugu dambeyntii waxa uu noqday kambaniga ugu weyn dalka China adduunyadana kaalmaha hore uu kaga jira kambanigiisa caanka ee Alibaba Group antida dhaqaale u haysta waxa lagu qiyaasaa inay tahay 35.5 bilyan waxaana uu ka mid yahay 30 qof ee adduunyada ugu lacagta badan leh Jack Ma nabad daawadayaal intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono